kulanti wacan ku soo dhawaada daawadayaal jalankeenii hal abuur ayaan leh maantana waxaanu idiin soo gudbinaynaa oonu idiin haynaa taariikhdii Teddy. qisadii Dr. Teddy qiso dareen aad u xanuun badan xambaarsan. Teddy dharkiisu had iyo jeer way wasakhaysan yihiin, uskaga ayaa ka muuqda, aqoontiisa waxbarasho aad ayay u hooseysaa. had iyo jeerna isaga ayaa isku maqan oo waa uu fikirayaa. wiilkan macallimadiisa iskoolku xukunkan ay dusha ka saartay ay u aragtay wiil aad u liita, waa aragtay ay ka dhaxashay muddadii ay wax u dhigaysay, sababtoo ah had iyo jeer lama ciyaaro ardayda, muuqaalkiisa guud waa mid aad u liita, had iyo jeerna musqusha ama suuliga ayuu u cararaa. murugada ka muuqata awgeed ayay macallimadu ku raaxaysataa marka ay buuggiisa iyo waraaqiisa imtixaanka saxayso, qalinka cas ayayna u badisaa, waxayna ugu qortaa uu dhacay warqad kasta. xaaladda wiilku uu ku sugan yahay markay aragtay ayay maalintii dambe waxay codsatay in dhammaanba loo keeno faylashii hore iyo warbixinihii dugsiga intii hore uu ku soo jiray. waxayna guda gashay in ay ka soo bilowdo sanadkii u horreeyey ee fasalkiisii koowaad. iyadoo akhrinaysa ayaa waxay aragtay arrin ay u qaadan weyday. macallinkiisii sanadkii koowaad waxa uu ka qoray Teddy waa wiil caqli badan oo dadaala, hibe ilaahay siiyey, shaqada loo diro si wanaagsan ayuu u qabtaa, si wanaagsan ayuuna u habeeyaa casharadiisa. macallinkii fasalka labaad ayaa isaguna waxa uu ka qoray warbixin odhanaysa Teddy waa wiil wanaagsan oo ay jecel yihiin saaxiibadii, hase yeeshee warwar iyo walbahaar ayaa ku soo kordhay kadib markii hooyadii cudurka kansarku ku dhacay. macallinkii fasalka saddexaad ayaa isaguna waxa uu ka qoray Teddy geerida hooyadii ku timid waxay u taabatay si adag, uu dadaalay laakiin aabihii ma ahayn mid daryeela wiilka oo ihtimaam siiya. xaaladda gurigooda ama aqalkooda ka jirtaana raad weyn ayay ku yeelan doontaa haddaan arrintaas wax looga qaban si degdeg ah. macallinkii fasalka afraad ayaa isaguna ka qoray Teddy waa wiil isku maqan oo intaa fikiraya, wax niyad ahna uma hayo waxbarashada, saaxiibo uu la sheekaystaana fasalka kuma leh, wuuna seexdaa xilliga casharada lagu jiro ee wax la baranayo. halkaa markii warbixinihii macallimada la marayaan ayay ogaatay oo garwaaqsatay dhibaatada jirta, waxayna dareentay in ay ku xadgudubtay wiilka, wayna isku khajishay ama isku xishootay oo ay iscanaanatay. xaalka macallimadu wuxuu ugu darnaa markii ay ardaydii oo dhan u dirtay hadiyada inay u keenaan. dabadeed ay ardaydii oo dhani u keeneen hadiyado ay ku soo duubeen waraaqo aad u qurux badan, marka laga reebo wiilka Teddy oo isagu ku soo duubay waraaqadaha caadiga ah ee dukaamadu dadka adeega ugu laabaan. arrintaasi macallimadii raad ayay ku reebtay, ardaydiina waxay galeen in ay ku qoslaan Teddy iyo hadiyadiisa foosho xun. hadiyadda Teddy waxa ay ahayd silsilad yar oo qoorta la sudho iyo quraarad ama dhalo cadar ah oo kala bar ah ama haafa. si lama filaan ah ayaa ay ardaydii qosolkii u joojiyeen markii ay macallimadii hadiyadii ka guddoomtay Teddy, isla markaana u sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay, si diiranna ugu mahad celisay. way xiratay silsiladii yareed markiiba, cadarkiina way isku boofisay. wixii maalintaas ka dambeeyey Teddy marka uu iskuulka laga baxo toos gurigooda uma tegi jirin, wuxuu sugi jiray intay macallimadiisu soo baxayso. maalintii dambe ayuu ku yidhi, maantana waxaan kaa urinayaa hooyadii oo aan kaa dareemayaa. markii uu intaas ku yidhi, macallimadii oohina ayaa indhaheeda ka soo daadatay, waayo Teddy wuxuu u sheegay in cadarkii kala barnaa ee uu hadiyadda ugu keenay hooyadii isku shubi jirtay, meelna uu dhigtay oo uu ku ilaashan jiray. sidaas daraaddeedna markii ay macallimadiisii isku shubtay, uu soo xasuustay urtii iyo cadarkii hooyadii. maalintaa wixii ka dambeeyey, macallimadii waxay guda gashay in ay aad u daryeesho Teddy, wuxuuna bilaabay Teddy in uu dadaalkiisii dib u soo celiyo, murugadii iyo walbahaarkiina ka yaraado. sanad dugsiyeedkii markuu dhammaaday, Teddy wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu darajada sarraysay. Teddy sanad dugsiyeedkii markuu dhammaaday wuxuu u qoray macallimadiisii warqad uu ugu mahad celinayo, uguna sheegayo in ay tahay macallimadii ugu wanaagsanayd ee soo martay intuu waxbarashada ku jiray. waxayna macallimadiisii ugu jawaabtay warqad kale oo ay ugu mahad celinayso, waxayna ugu qortay, waxaad i bartay sidaan u noqon lahaa macallimad wanaagsan oo daryeesha ardaydeeda. Teddy wuu ilaaway macallimadiisii markii uu ka gudbay dugsigii sare, warqad kale ayaa uu u soo qoray oo uu ugu mahad celinayo sidii ay u soo garab istaagtay. muddo kadib oo sanado badan ka soo wareegeen, waxaa sanduuqa boostada gurigeeda ugu soo dhacday warqad casuumad ah in ay ka soo qayb gasho xaflad qalinjabin ah oo lagu qabanayo jaamacadda, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka. waxayna uga timid casuumaddu Teddy oo ay tahay xafladiisii qalinjabinta.
macallimadii iyada oo ku labisan hadiyadii silsiladii yarid ee Teddy u keenay ay ka soo qayb gashay xafladii qalin jabinta ardaygeedii Teddy. Teddy wuxuu noqday dhakhtar caan ah oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka oo ah cudurkii hooyadii ay u dhimatay.